ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo tan iyo markii uu la wareegay xukunka Itoobiya bilaabay inuu baabi'iyo maamulada ka jira Itoobiya isagoo kal hore ku guuleystay duulaan cir iyo dhul ahaa oo uu ku qaaday maamulka Tigrayga oo 30 sano haystay xukunka Itoobiya ayaa hadda ku guuleystay inuu kala dhantaalo awoodii maamulka Soomaalida ee Itoobiya daawada muuqaalkan like star falowna soo page-keena si aad noola socoto dawladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday inay kala dirayso dhammaan ciidanka gaarka ah ee dawlad deegaanku lahaayeen ee loo yaqaanay Liu Police waxaana war-saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda federaalka Itoobiya lagu sheegay in dhammaan ciidamada gaarka ah ee Liu Police lagu biirin doono ciidanka heer qaran ee federaalka Itoobiya waxaana askari walba oo kamid ah ciidanka Liu Police la dooransiiyay ama u furan ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka inuu ku biiri karo noocyada kala duwan ee ciidanka federaalka Itoobiya sida militariga iyo booliska tilaabadan ay qaaday dawladda Itoobiya ayna ku beegsatay maamulka Soomaalida ayaa ka dhigan in dawlad deegaanka Soomaalida laga waayi doono ciidankii caanka ahaa ee loo yaqaanay Liu Police isla markaana ku shaqayn jiray amarada ka soo baxa madaxda dawlad deegaanka guddiga loo xil saaray hubka dhigista inay ku sameeyaan ciidanka Soomaalida ee Liu Police ee uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa hadda ku sugan magaalada Jigjiga halkaas oo lagu amray madaxweynaha dawlad deegaanka Mustafa Cagjar inuu hubka dhigista kala shaqeeyo guddiga uu magacaabay Abiy Ahmed ee ka socda dawladda dhexe ee Itoobiya taasi oo uusan ka biyo diidi karin Mustafa Cagjar sidoo kale maamulada Oromada iyo Canfarta oo ah maamulada ugu awooda badan Itoobiya marka laga soo tago maamulkii Tigrayga ee awoodiisa la wiiqay ayaa kamid ah maamulada ay dawladda Itoobiya sheegtay inay ciidankooda ku kala darayso ciidanka dawladda dhexe ee Itoobiya tilaabadan ayaa lagu sheegay isku day lagu dhimayo madax banaanida maamulo gaar ah sidoo kale waxaa jira warar sheegaya inay jirto diidmo xoogan iyo hadalhayn badan oo ka dhalatay qorshahan Abiy Ahmed uu wato sidoo kale waxaa gobolka Amxaarada laga soo sheegaya isku dhac ciidan oo dhex maray ciidanka militariga Itoobiya iyo ciidanka maamulka Amxaarada qorshahan uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ku doonayo in la dhimo awoodda maamulada Itoobiya ayaa waxaa ka dhalan kara isku dhac ciidan iyo khilaaf cusub oo Itoobiya gasho ayadoo la og yahay sida ay maamulada Itoobiya ka jira ugu qoys qaateen maamulkii ugu awooda badnaa ee Tigrayga oo aysan ku dhiiran karin inay si cad uga hor yimaadaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo Itoobiya raba inuu waqti dheer sii xukumo daawada sida waragtaa fikirkaaga qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag